ku soo dhawaada xulashada wararka iyo warbixinada caalamka sirdoonka iyo wararka diblomaasiyadda. qaybtan waxaan uga hadli doonaa sir laga helay qaabkii loo dilay Saddam Hussein, cidda ka shiftay iyo kulamadii qarsoodiga ahaa. ka hor inta aan la soo qaban, maxaa dhacay? maxaad ka og tahay subaxii guduudnaa, xogta xabsigii uu ku jiray iyo qabriga Saddam Hussein? mahadsanidin daawadayaal. aan ku bilowno. Saddam Hussein, madaxweynihii hore ee Ciraaq, waa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu hadalhaynta badnaa uguna caansanaa ee dunidan soo maray qarnigii hore iyo qarnigaanba. wuxuuna dagaal ba'an la galay Mareykanka oo waqtigaas ka itaal roonaaday midowgii Soofiyeed, iskuna arkayay quwad aan la hor istaagi karin. Mareykanka oo u dan lahaa geeska iyo shidaalka dhex eegaaga dhulka Ciraaq ayaana si ay u weeraraan waxay marmarsiyo kaga dhigteen midaas in Saddam Hussein uu haysto hubka waxgumaada ee nuclear-ka, sidaasi awgeedna waajib inay tahay in la weeraro, iyadoona weerarkaas Mareykanku ku garabsiinayeen dawlado ay ka mid yihiin Ingiriiska. inkastoo ay beenowday arrintii ahayd in Saddam haysto hubka nuclear-ka, haddana arrinkaasi Mareykanka kama aysan celinin joogistiisa dhulkaas, iyadoona ilaa maantadan la joogo ku sugan danahooda gaarka ahna ka fushada. haddaba kanalka Al Jazeera ayaa waxa ay maqaal dhinacyo badan taabanaya ka diyaariyeen xogo qarsoona, kuwaas oo dhowaan la shaaciyey misna ay sheegeen dad xog ogaal u ahaa xilligii la qabanayay Saddam Hussein, waxayna xogahan ka warbixinayaan sida looga been sheegay qabashadiisii iyo arrimo kale oo muhiim ah. maqaalkii Al Jazeera oo dhammaystiran halkan kaga bogo. muddo haatan laga joogo 17 sano, taariikhduna ay ahayd subaxnimadii 13 Diseembar 2003, ciidamada Mariiniska Mareykanka ayaa fuliyey howlgal gaadma ahaa, kaasoona sabab u noqday inay gacanta ku soo dhigaan madaxweynihii hore ee Ciraaq, haatana geeriyooday Saddam Hussein, Allah u naxariiste. bayaan ay soo saareen ciidamada Mareykanka waqtigaas ayayna ku sheegeen in howlgalka ay ka qayb qaateen boqolaal ka mid ah ciidamadooda, gaar ahaan guutooyinka sida gaarka u tababaran si ay u fuliyaan howlgalka lagu soo qabtay Saddam Hussein. waxayna sidoo kale sheegeen in Saddam ka soo qabteen god dhulka hoostiisa ku yaallo meel u dhow beer ku taala goobta la yiraahdo Tikrit oo ah xarunta degmada Salaaxudiin ee dhacda waqooyiga magaalada Baghdad. sidoo kalena waxay sheegeen in lacag kaash ah iyo hub uu watayba ay soo qabteen, balse bayaankan ay waqtiga soo saareen Mareykanka waxa uu ahaa mid shaki badan ay ka qabeen Ciraaqiyiinta, waxayna aaminsanaayeen shacabka Ciraaq in Saddam Hussein laga soo qabtay xarun aad loo ilaalin jiray misna ku taala dhulka hoostiisa, waana xarun uu Saddam Hussein u sameeyey in uu ugala kulmo hoggaanka dawladdiisa iyo saraakiisha ciidankaba, iyadoona xaruntan goob shir u ahayd. ka hor inta aan la soo qabanin Saddam Hussein, waxaa jireen goobo badan oo loo diyaariyey ka hor inta uusan dhicin weerarkii Mareykanka ee Ciraaq, iyadoona ujeedka laga lahaa goobahan qarsoodiga ah ay ahayd in xarun u noqoto hoggaanka dawladda Ciraaq, gaar ahaan Saddam Hussein iyo ku-xigeenkiisii haddii ay xaaladda cakiranto. waxaana arrinkan daaha ka qaaday wariyaha lagu magacaabo Mustafa Kamil oo u warbixinayay kanaalka Al Jazeera, ayaana isaga oo ka hadlayay nooca ay ahaayeen xarumahan qarsoodiga ee loo diyaariyey madaxda Ciraaq ka hor weerarkii Mareykanka, ayuu sheegay in qaarkood ay ahaayeen guryo cidla oo aysan cidi deganayn, halka qaarka kalena ay ahaayeen guryo baadiye ah iyo dhulalka beeraha ku yaala. weliba qaybtan guryaha waxay ahaayeen kuwo iska basiid ah oo aanan marnaba laga shakin karin in hoggaanka Ciraaq ku dhuumaalaysan karaan. Mustafa Kamil oo hadalkiisa sii wata ayaana yidhi, shaki kuma jiro markaad bartanka kaga jirto duruuf ah inaad halis ku jirto oo ay kugu kallifayso dhuumasho, balse arrinkan ah in Saddam Hussein uu ku dhuumaalaysanayay xarun qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa ku taala waa mid aanan waxba ka jirin oo aanan sax ahayn. Mustafa Kamil oo waqtigaas ahaa ku-xigeenka agaasimaha wargeyska Jamhuuriya misna ku hadli jiray afka dawladda Ciraaq ee waqtigaas, ayaana ka sheekeeyay arrinkan isagoona xiganayay shakhsiyaad aad ugu dhowaa Saddam Hussein. wuxuuna sheegay in Saddam Hussein uusan marnaba hal guri 2 maalin oo xiriir ah ku qaadanin, inta badanna wuxuu ahaa mid hadba meel u guura. goobtii lagu qabtayna wuxuu tegay maalintii la qabtay maalintii ka horreysay. Mustafa ayaa sheegay in goobtaasi ay ahayd beer ku taalay goobta loo yaqaano Al Dawr, taasoo u dhow magaalada Tikrit ee dhacda xeebta webiga Dijla. isagoona hadalkiisa sii wata ayuu sheegay
in goobtan lagu soo qabtay saadaam xuseen ay astaan qaasa u ahayd madaxweynihii ciraaq, waayo waxay aad ugu dhoweyd goobtii uu kaga tallaabay webiga Dijla sanadkii 1959, waana xilligii uu ka qayb qaadanayay isku day lagu shirqooli rabay ra'iisul wasaarihii ciraaq ee waqtigaas Cabdulkariim Qaasim. saadaam xuseen ayaa ahaa shakhsi ku soo koray nolol adag, sidoo kalena aanan jileec aqoonin. dhammaan marxaladihii noloshiisana duruuf adag ayuu ku soo noolaaday, sidaasi awgeed wax dhib ah kuma aysan ahayn inuu la noolaado duruuftaas degdega ahayd ee uu wajahay xilligii la qabanayay. subaxii guduudna saraakiisha ciidamada Mareykanka ee howlgalkan fuliyay ayaana waxay howlgalka ugu magac dareen subaxii guduudna, wuxuuna howlgalkan yimid kadib markii muddo 8 bilood ah raadis ku wadeen saadaam xuseen, iyadoona hawsha raadinta ay bilaabatay 9kii bishii Abriil 2003, waxaana gacanta lagu soo dhigay 13kii bishii December ee isla sanadkaas 2003, sida uu sheegay taariikhyahanka reer Ciraaq ee Daariq Xarbi. Daariq oo u waramayay kanaalka Al Jazeera ayaana waxa uu intaas ku daray in howlgalka lagu soo qabtay saadaam xuseen uu ahaa mid la wariifay kadib markii mid ka mid ah raggii ka agdhawaa saadaam xuseen uu la xiriiray saraakiishii Mareykanka ee baarista saadaam ku howlanaa, isagoona khiyaano sameeyay. wuxuuna saraakiishan siiyay xog xasaasi ahayd, misna u suurtagelisay in saadaam xuseen soo qabtaan. isagoo warkiisa sii wada ayuu waxa uu sheegay in saadaam xuseen marnaba isku dayin wax iska caabina markii la qabanayay, sidoo kalena xaaladda uu waqtigaas ku sugnaa ma aysan ahayn mid dabiici ah, mana la garanayo waxa arrinkaasi sababay, haddii ay tahay daawo uu cunay ama in muddo dheer dhulka hoostiisa ku jiray. Daariq oo hadalkiisa sii wata ayaana sheegay in saadaam markii ay maxkamadda ku arkeen uu ahaa saadaam xuseenkii ay yaqaaneen nin xooggan, miisaan leh, sidoo kalena dood adag geli jiray, isagoona wax walba oo ku saabsan ra'yigiisa sharixi jiray, balse marnaba xaalka sidaas ma ahayn markii gacanta lagu soo dhigay. sidoo kale warbixinada gaarka ah misna ka hadlayo qaabkii lagu soo qabtay saadaam xuseen waxay sheegayaan in soo qabashadiisa marnaba aysan wax lug ku lahayn khiyaano iyo wariifnimo uu sameeyay mid ka mid ah raggii isaga ka agdhowaa, balse jawaasiista Mareykanka ay raad raaceen mid ka mid ah raggii qaraabada la ahaa saadaam xuseen, Saajida Khayrullah, waxaana ninkan lagu magacaabi jiray Maxamed Ibraahim Cumar al-Muslid. sidoo kale Maxamed Ibraahim ayaa ka mid ahaa saraakiisha amniga ee ilaalin jiray saadaam xuseen, isagoona weliba bishii Abriil 2003 kala soo muuqday saadaam xilli ay ku sugnaayeen goobta la yiraahdo Al-Acdimiyah ee magaalada Baghdad ka tirsan. Maxamed Ibraahim ayaana waxaa xiray ciidamada Mareykanka, kadibna waxaa la mariyay baaritaano xoogan, isagoona lagu cadaadiyay inuu sheego xog iyo macluumaad sabab u noqdeen goobaha laga filan karo inuu saadaam xuseen ku dhuumaalaysanayo, waxaana goobahaas uu sheegay ka mid ahaa goobta laga soo qabtay saadaam xuseen. Mustafa Kamil ayaa xaqiijiyay in ciidamada Mareykanka markii ay soo qabanayeen saadaam xuseen ay adeegsadeen gaas iyo kiimiko, isagoo weliba cadeymo arrinkaasi ku saabsan bannaanka soo dhigay. xitaa wuxuu sheegay in kiimikadaas Mareykanka adeegsadeen muddadii ay howlgalka wadeen ay saameyn daran ku yeelatay dadkii lahaa beerihii ka agdhowaa goobta saadaam xuseen laga soo qabtay. Mustafa ayaa sidoo kale sheegay in sawirka uu ka soo muuqday saadaam xuseen xilligii la qabanayay ay ahayd mid iska cad inuu ahaa qof aan miir ku filan lahayn, sidoo kalena la daroogeeyay si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqiisa. qofkii si dhab ah u yaqaana saadaam xuseen wuxuu ku xaqiijin karay inaysan marnaba suuragal ahayn saadaam in xaalad caynkan oo kale uu ku sugnaado, dabeecadna uusan u lahayn. saadaam xitaa markii la maxkamadeynayay iyo markii xukunka daldalaada lagu filinayaba, labada goorba isagoo nin adag ah ayuu warbaahinta ka soo muuqday, waxayna caddayn u tahay in waqtigaas xaalad dabiici ah ku sugnaa, balse markii la soo qabanayay marnaba xaalad dabiici ah kuma uusan sugnayn. saadaam xuseen oo dagaal qaraar la galay ciidamada Mareykanka ee ku duulay dalka Ciraaq ayaa qorshihiisa waxa uu ahaa inuusan marnaba isdhiibin intay noloshu ku jirto, dagaal culusna mar walba la galo Mareykanka, isagoona ay u diyaarsanaayeen ciidamo hub iyo saanad military kuwaas oo ku doonayay inuu Mareykanka kaga saaro Ciraaq. saadaam wuxuu waqtigaas moodayay in ciidankiisa Mareykanka iska caabin doonaan muddo sanad ah,
balse marnaba maankiisa kuma uusan soo dhicin in sannadahaas ay noqon karaan keliya bilooyin, sidoo kalena marnaba kuma uusan fakerin in isaga gacanta lagu soo dhigi doono. saadaam xuseen qorsho weliba oo uu lahaa waxaa fashiliyey dadkii isaga wariifay misna cadowgiisa uga hiiliyey, waana arrin dhabarjab weyn ku noqotay iyo in Maraykanka gacanta ku dhigaan isagoo nool, waayo saadaam marnaba isma lahayn mid ka mid ah qoyskaaga ayaa ku jaajoosi doona, cadowgaagana la shaqayn doona. Kifaax Maxamuud oo ahaa qoraa sidoo kalena ah siyaasi weyn ayaa isagoo arrinkan ka hadlaya waxa uu yidhi, marnaba maankayga kuma aysan soo dhicin qaabkan in loo soo qaban doono. waxaan islahaa wuxuu hoggaamin doonaa ciidankiisa, wuxuuna iska caabin doonaa Maraykanka ilaa uu Ciraaq ka saaro ama dagaal lagu dilo, balse waxay u muuqataa inaan annaga marnaba ka warhaynin sariirta dhabta ah ee ninkan sugaysay. Kifaax Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in saadaam xuseen aaminsanaa in wejiyada dagaalka isbedeli karaan waqti kasta, wuxuuna u muuqday mid cadowgiisa wax la sugayo, balse wixii dhacay iyo qabashadiisii la qabtay ayaa wax walba soo gabagabaysay. sidoo kale wariyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Maraykanka ay ka been sheegeen hantida iyo hubka ay sheegeen in saadaam xuseen la soo qabteen markii ay soo xirayeen, wuxuuna sheegay in saadaam waqtigaas uusan hanti badan wadanin, sidoo kalena hub badan haysan, waxa kaliya ee uu haystan ay ahayd biskooladiisii u gaarka ahayd iyo qori uu si shakhsi ahaana u lahaa, waxaana intaasi u soo raacay lacag lagu qiyaasay inay ahayd $700,000, taas oo ugu talagalay muqaawinadii ee dagaalka kula jirtay Maraykanka, mana ahan lacag badan oo la xusi karo. haddii aynu eegno xabsigii uu ku jiray saadaam xuseen, saadaam ayaa sida xog lagu helay wuxuu ku xidhnaa mid ka mid ah qasriyadii Ciraaq ku yaalay, halkaas oo uu sidii xabsi guri oo kale ah lagu hayay muddadii ay maxkamadayntiisa socotay. sababta ay midaasi Maraykanka u sameeyeen ayaana waxay ahayd iyagoo xilligaas ku baaqayay in saxaafadda iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda falkooda suurad xumayso, tii oo jirtay in waqtigaas aysan iska caabin kulul kala kulmaynin muqaawimadii Ciraaq. sidaasi awgeed Maraykanka ayaa qaab macquul ah ula dhaqmay saadaam xuseen muddadii xukunkiisa socday, waxaana sidoo kale muddadaas saadaam la kulmay saraakiil badan oo ciidamada Maraykanka ee Ciraaq ku sugnaa ay ka mid ahaayeen. saraakiishan ayaana saadaam marar badan ay wada hadleen, iyagoona kala dooransiiyey laba wadda midkood inuu qaado. midda koowaad waxay ahayd inuu muqaawimada Ciraaq ka dalbado joojinta dagaalka ay ciidanka Maraykanka ku hayaan. waddada labaadna waxay ahayd haddii uu diido midda koowaad in isaga uu mari doono jid la mid ah midkii ay mareen Nabilyon iyo raggii la midka ahaaba. hawsha baarista saadaam xuseen waxaa gacanta ku hayay wakaaladda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da. in muddo ah ayayna saadaam ka daba jiitamayeen, balse marnaba kama aysan helin wax ay doonayeen, amaba waxa ay doonayeen muddadaasina saadaam wuxuu ahaa mid dhankiisa iyaga la doodo, gardarradoodana hordhigo. sidaasi awgeedna iyagoonan ee isaga siinin waxa uu doonayay, suuragal ma ahayn inay isaga ka helaan waxa ay iyaga doonayeen. qabrigii saadaam xuseen markii la daldalay kadib waxaa lagu duugay goobta loo yaqaano Al-Awjah, taasoo u dhow magaalada Tikriid, balse amar ka soo baxay wasaaraddii arrimaha gudaha ee Ciraaq waqtigaas ayaa waxay amar ku bixisay in meydka saadaam xuseen laga raro halkan, sidoo kalena lagu duugo mid ka mid ah qabuurayaasha caadiga ah si uu qabrigiisa u noqdo mid majhuul ah oo aysan cidna garanaynin. dad badan iyo warbaahin badan ayaana horay xog uga raadiyey inay ogaadaan goobta dhabta ah ee uu saadaam ku duugan yahay, balse midaasi way ku fashilmeen, iyadoona xukuumaddii Nuur al-Maliki ee waqtigaas ka gaabsatay in wax jawaaba ka bixiso halka la geeyey meydka saadaam xuseen. intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa warbixinada caalamka, sirdoonka iyo wararka diblomaasiyadda oo aan ku soo qaadanay sir laga helay qaabkii loo qabtay saadaam xuseen, cidda ka shiftay iyo kulamadii qarsoodiga ahaa. intaan mar kale warbixino caynkaana ku kulmi doono. nabadgelyo.